warkii oo fidsanaa gudoomiye Mungab ayaa waxa uu dhagax dhigay xarumo caafimaad oo laga hirgeliyay gobolka Banaadir. Ismaaciil Yabarow ayaa faahfaahinaya. waa dhagax dhigaas 12 xarumood oo caafimaad waxaan dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mungab waxa dhinaciisa taagnaa gudoomiyaha degmada Waaberi agaasimayaasha caafimaadka nadaafadda iyo hoofinta ayaa sidoo kale goob joog ah mas'uuliyiin kale caafimaad ayaa sidoo kale munaasabadan dhagax dhigaha goob joog ah ugu horeyn gudoomiyaha degmada Waaberi ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay in la dhiso lana dayactiro xaruntan caafimaad ee MCH-ka ay ku yaalo Mutoriyada Algaabta ee degmada Waaberi loogu talagalay in lagu casriyeeyo MCH-kan ku yaala meeshan oo la yiraahdo Algaabta sharaf iyo karaamo inoo tahay in maanta 18 goobood oo ku yaala Muqdisho oo waliba isbitaallo u badan in gudoomiyuhu ballanqaadkii uu ballanqaaday inuu canshuurta dadka laga qaado gadaal ugu soo celinayo waliba wixii ugu muhiimsanaa caafimaadka in maanta ay ka bilaabato xaruntan aadaan uga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa meeshan oo ah waliba meelaha ugu daran dadka aad u nugul ay degan yihiin oo waliba loogu adeego in xarun qurux badan oo qalabaysan oo intaas kadib agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir ayaa ka warbixiyay dhagax dhigaas 12 xarumood ee duqa Muqdisho uu sameeyay ee goobaha caafimaad ee sida gaarka ah loo dhagax dhigay iyo faa'iido ay u leedahay bulshada Soomaaliyeed weyn lagu dhagax dhigayo 18 xarumood oo xarumo caafimaad ee gobolka Banaadir mudane gudoomiye maanta waa maalin weyn farxad gaar ah inoo tahay in aad ballanqaadyadii aad markaad imaato xafiiska aad ka dhaweys oo maanta 18 xarumood oo gobolka Banaadir ku taalo aan noo dhagax dhigaysid kuwana la dhisaayo kuwana la casriyeenayo runtii arintan waxay ku soo beegmaysaa mar agaasiga caafimaadka iyo maamul gobolka Banaadir xarumaha caafimaadka ay u baahnaayeen dib u casriyeen rasmi ah si loogu adeego dadka ku dhaqan ama bulshada ku dhaqan gobolka Banaadir runtii gudoomiye Mungab la'aantiis arintan ma dhici lahayn waxa xusid mudan markuu xafiiska imaanayo gudoomiyaha wuxuu dhigi jiray magaaladan waa xanuunsan tahay ama saalay saaran tahay gudoomiye waxa noo muuqata saaladii magaalada inay ka sii baxayso maadaama adeegyadii caafimaadka kor loo qaadayo mashruucan waa mashruuci ugu weynaa ee gobolka Banaadir xarumihiis laga hirgeliyo gudoomiye mashruucan wuxuu wataa dhismo dayactir habaysan sidoo kale xarun kastoo la dayactiray qalabkeedana waa loo dhameystiran yahay ma haddaasna waxaa iskala duqo magaalada oo hortabin si adeegyada caafimaadka ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Dr. Xasan Maxamed Xuseen Mungab oo dhagax dhigay 18 xarumood ayaa si aad ah uga hadlay in bulshada Soomaaliyeed ay kaalin muhiim ah u buuxinayso oo ka baran iyadoona ay ka mid doonto goobahan caafimaad ee maanta dhagax dhigay baahiyaha caafimaad ee ka jiray magaalada caasimadda Muqdisho ee Iran islaan kadib runtii maanta sida la sheegay waa maalin weyn waa maalin taariikhi ah oo aan halkan ku dhagax dhigayno dayactirka iyo dib u casriyeynta xarumo caafimaad oo gaaraya 18 xarun caafimaad oo isugu jira 4 isbitaal iyo 14 oo ah kuwa hooyooyinka iyo dhallaanka xarumahaas oo dhammaantood ku yaala gobolka Banaadir gaar ahaan 11 degmo oo ka tirsan gobolka Banaadir alxamdulillah ilaahay noo suuro geliyay mahadle ujeedka dhagax dhigan iyo mashruucan waa in la hormariyo kaabayaasha caafimaadka hooyooyinka iyo dhallaanka lana hubiyo in dadka reer Muqdisho ay helaan adeeg caafimaad oo tayo leh isla markaana u dhow oo si dhow ay u gaari karaan arintan waxay wax weyn iyadana ka tari doontaa ama ay yaray doontaa zaxmada iyo culeysyada waaweyn ee ka jira isbitaalada kale ee waaweyn ee ku yaala magaalada Muqdisho ugu dambeyn waxaan rabaa inaan shacabka reer Muqdisho u xaqiijiyo in maamulka gobolka Banaadir ay ka go'an tahay in uu hormariyo
adeegyada caafimaadka kuwa waxbarashada nadaafadda iyo bilicda caasimadda iyo dhammaan adeegyada kale aasaasiga u ah si maaragtay magaaladan looga helo bulsho caafimaad qabta isla markaana nabad ah. waxaan rabnaa marka mar walba waxaan idin ballan qaadnaa in aan shacabka muqdisho canshuurta leedinka qaado aan adinka idinku soo celi doono. arrintan waxay maaragtay taas ay qayb ka tahay, waxay maaragtay xoojinaysaa sidoo kale awoodda adeeg bixinta ee dowladda hoose ee xamar, hadday ahaa lahayd adeega caafimaadka, hadday ahaa lahayd adeega waxbarashada, hadday ahaa lahayd adeega bilicda soo celinta bilicda caasimadda. mar walba waxaan u taagannahay in aan idin khidmayno, adinkana waxaan idin rajaynaynaa in aad canshuurta bixisaan, maamulka aad garab istaagtaan, nabadgelyada aad ka shaqaysaan. xarumahaana waxay noqon doonaan xarumo si casri ah loo diyaariyo oo tayo leh. shirkadaha qandaraaska ku qaatana lala xisaabtami doono, agabkoodana uu u dhammaystiran yahay haddii ilaahay yidhaahdo. mar walbana waxaa noo dib u dhis ballaaran ayaa waxa uu ka socdaa isbitaalka Lanceleti iyadoo wasiirka caafimaadka uu kormeeray xarumaha dib loo howlgelinayo. waa kan Qaasim Jacfari oo warkan faahfaahinaya. dhismaha kaydka talaalka qaranka oo halkan loo soo rari doono muddo 35 sano kadib iyadoo laga maamulayay Nairobi. wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan ayaa maanta kormeer shaqo ku tagay goobo badan oo wasaaradda caafimaadka ay ka wado dhismo oo lagu ballaarinayo adeegga caafimaad ee ay bixiso wasaaradda. goobaha uu Dr. Cali Xaaji Aadan kormeerka uu maanta ku tagay waxaa ka mid ah shaybaarka qaranka, halka uu ka socdo dhismo aad u xooggan oo lagu ballaarinayo adeegga caafimaad ee wasaaradda ay bixiso. sidoo kale wasiirka goobaha uu maanta booqashada ku tagay waxaa ka mid ah kaydka xarunta talaalka qaranka, waxaana ugu warbixiyey madaxa talaalka Dr. Maxamed Maxamuud Deero. sidoo kale agaasimaha isbitaalka Forlanine ayaa asna howlaha guud ee dhismo ee ka socda isbitaalka sida qaybaha dhallaanka, nafaqada carruurta iyo qaybo kale oo ka mid ah isbitaalka sida gargaarka degdega ah. xarumaha hadda dhismaha uu ka socda ayuu ka warbixiyey agaasimaha isbitaalka Maxamed Jacfar Cali. waxaan ku faraxsanahay inaan wasiirka wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji ku soo dhaweeyno dhismaha kaydka qaranka talaalka oo runtii u ah milestone aad u weyn wasaaradda caafimaadka hogaamintiisana ku timaaday in markii ugu horeysay la bilaabo dhismihii oo lagu keedin lahaa talaalada kala duwan ee dalka oo aan rajaynayno inuu goordhow uu soo gabagaboobo dhismahaas. wasiir sidaa hore warbixinta aan kugu sheegnay dhismahan wuxuu si gaar ah wax ugu tari doonaa bixinta adeegyada kala duwan ee talaalka, hadday ahaan lahayd adeegyada talaalka joogtada ah oo kala duwan oo ku jiro talaaladii u dambeeyay oo runtii aad wadanka ku soo kordhisay ee laba talaal looga hortago cudurrada pneumonia iyo diarrhea. sidoo kale talaalka xarunta keedka waxay si gaar ah ay baahi loogu qabay ay fududeyn doontaa wadadii dheereed uu soo mari jiray talaalka oo ugu horeyso muddo dheer kadib in laga soo rari doono dhawaan xarunta keedka oo ku taala Nairobi oo wadanka markii uu dhamaado dhismihiisa adigana aad daafuri doontid daafuri doontid dhismahaas inaan maaragtay ka faa'iideysan doono. marka waa ku faraxsanahay saakay dhismaha si fiican oo qurux badan ku socda heer gagabo ayuu maraa. waan rajayn doonaa baahi badan oo ku saabsan keydinta talaalka inuu maaragtay uu ka qayb qaadan doono keydintiisa qaybaha kala duwan oo alaabaha lagu keediyo talaalka sida qolalkii ama cold rooms wax loo yaqaan sida qaboojiyaasha iyo alaabaha kala duwan ee lagu shaqeeyo markay timaado adeeg bixinta talaalka. waxaa booqasho iyo kormeer noogu yimid wasiirkeena wasaaradda caafimaadka Dr. Cali Xaaji Aadan Abubakar oo soo booqday qaybaha kala duwan ee isbitaalka sida dhismayaasha lagu soo kordhiyey isbitaalka oo ay ka mid tahay xarunta gurmadka iyo gargaarka degdega iyo dhaawacyada daran oo isbitaalka wasiirku uu dhagax dhigay oo heer gabagaba ah maraya oo aan rajaynayno in horaanta sanadka cusub xariga laga jaro oo ka kooban qaybihii bukaan socodka, bukaan jiifka, operation theaterkii, xaruntii intensive care unitkii oo loogu talagalay dadka xaaladooda ay adag tahay oo aan rajaynayno inay u noqoto xaruntan xaruntii ugu muhiimsaneed
degmooyinka la isku yiraahdo Northern Part of Muqdisho oo dabooli doona baahiyahaas isbitaalka iyo xarumo kale oo cusub oo ay ka mid tahay xarunta hooyada iyo dhalaanka iyo xarunta haweenka loogu talagalay dhimirka ka xanuunsan oo iyadana aan rabno dhawaan in xariga laga jaro oo wasiirku noogu bin maanta booqasho iyo kormeer. sidoo kale wasiirka waxa uu sheegay xarumahan la dhisayo in dhawaan xariga laga jari doona si ay kaga qayb qaadataan baahinta adeega caafimaad ee wasaaradda ay bixiso bulshada Soomaaliyeedna ay baahi weyn u qabto. dhismayaashan xarumaha kala duwan ayaana waxa ay ka qayb qaadanayaan la tacaalidda xanuunada kala duwan oo sida emergency-ga gargaarka degdega ah sidoo kale shaybaarka talaalka caruurta hooyada iyo dhallaanka iyo qaybo kale oo ka mid ah sidii horumar loogu sameyn lahaa. wasiirka ayaana ugu dambeyn warbaahinta la hadlay oo ka warbixiyay. waxaan soo maray dhismaha shaybaarka qaranka oo gabagaba marayo oo maxay ahayd laga hormariyay level 1 oo la gaarsiinayo level 3 qalabaynta iyo tayeynta xirfadaha ama shaqaalaha iyo dhismaha intaba la hormarinayo ayaan soo kormeeray. waxaa kaloo soo kormeeray dhismaha wasaaradda caafimaadka lagu ballaarinayo xafiisyada wasaaradda caafimaadka lagu ballaarinayo iyo masaajidka oo maxay ahayd asagana wasaaradda dhexdiisa laga dhisahayo oo markii ugu horeysay wasaaradda caafimaadka masaajid ay yeelato ayaan sidoo kale soo kormeeray. waxaan hadda joognaa isbitaalka Forlarini oo laba dhismo waaweyn ay ka socdaan dhismaha kaydka talaalka qaranka oo halkan loo soo rari doono muddo 35 sano kadib iyadoo laga maamulayo Nairobi xarunta ugu weyn ee lagu keydiyay kaydka talaalka Soomaaliya lagana maamulo halkan ay noqon doonto ayaan soo kala kormeeray oo dhismihiisa asagana meel fiican hadda uu marayo. waxaan hadda dhex joognaa sidoo kale isbitaalka emergency-ga ah oo asna laga dhisayo isbitaalka Forlarini dhexdiisa laga dhisayo isbitaal leh qaybaha kala duwan emergency-ga iyo ICU-da iyo qaybihii maamulka iyo qaybihii bukaan jiifka intaba ka koobnaan doono oo maxay ahayd isbitaal asagana si casri loo dhisayo si casri loo qalbaynayo asna baahida xaaladaha degdega ah oo gurmadkooda wax weyn ka tari doonto. sanadii la soo dhaafay waxaan aad xoog u saarnay in wax ka qabashada xaaladaha emergency-ga ay aad xoog loo saaray xaalado badan xaalad dhisay trauma center-ka isbitaalka Martini ayaa la dhisay trauma center aan ka dhisnay isbitaalka Madiina dhexdiisa ICU ayaa la keenay isbitaalkana wararka caalamka 9 qof ayaa waxa ay ku dhimatay qarax ka dhacay saldhig booliis oo ku yaala gobolka Kashmir qaybta ay maamusha Hindiya. waxa lagu soo waramayaa in 30 qof in ka badan ay ku dhaawacmeen qaraxaasi. ugu yaraan 9 qof ayaa waxa ay ku dhimatay in ka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii kaydka bamka ee laga qaatay saldhig booliis oo uu ku qaraxay magaalada Srinagar ee gobolka Kashmir oo ay maamusha Hindiya. qaraxan ayaa waxa uu dhacay xalay gaar ahaan aaga Novgam ee koonfurta Srinagar xilli kooxo baarayaal ah oo booliis ah iyo khubaro falanqeynay ay hubka qaraxa ay ku baarayeen saldhigaasi. ilaha aan la magacaabin ayaa waxa ay sheegeen in baaxadda qaraxa ay ahayd mid aad u weyn iyadoo ay jiro qaar si buuxda u gubtay isla markaana qayb jirka ka mid ah laga helay guryaha u dhow ilaa 200 mitir meel u jirta saldhigga booliiska. badankooda dadka dhintay waxa ay ahaayeen saraakiil booliis iyo kooxaha baaritaanka ee hubka qarxa baaray iyadoo 2 mas'uul oo ka tirsan maamulka Srinagar sidoo kale ay ku dhinteen qaraxa sida laga soo xigtay warbixinta NDTV. 5 qof ee weli xaaladoodu ay halis tahay tirada dhimashaduna waa ay sii kordhi kartaa bay yiraahdeen saraakiisha caafimaadka. mas'uuliyiinta booliiska ayaa waxa ay sheegeen in tani aysan ahayn weerar argagixiso balse ay tahay dhacdo murugo leh oo shil ah isla markaana qaraxa uu ka dhacay marka koox baaritaan ah hubka qarxay ay halkaasi ku eegayeen. qaraxan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa maalmo kadib qarax ka dhacay New Delhi oo lagu dilay ugu yaraan 12 qof iyadoo baaritaanka uu muujinayo in kooxaha Jaish Mohammed iyo waliba sidoo kale koox kale oo la yiraahdo Ansar al-Hind ay ku lug lahaayeen. booliiska Kashmir waxay sheegeen inay qabteen in ka badan 650 qof oo la xiriirinayo qaraxii ka dhacay caasimadda Hindiya ee New Delhi isla markaana ay soo qabteen ilaa 3,000 oo kilogram oo hub qarxa ah taasi oo muujinaysa isku day weerar ballaaran oo ka dhan ah gudaha dalka Hindiya. warbixintaasi caalamka ayaa ugu dambeysay guud ahaana warkii telefishinka bahda igala qayb gashay intaas ayuu ku idil yahay tani kulan dambe nabadgelyo.